ujeedada munaasabadan ayaa ahayd sidii loo dhiirigelin lahaa ardayda ama da'yarta Soomaaliyeed ee wax ka barata London gaar ahaan xaafadda Hounslow ee galbeedka magaalada London. munaasabadan ayaa waxaa soo qaban qaabiyay ururka lagu magacaabo Hounslow Somali Community oo fadhigoodu yahay xaafadda Hounslow ee galbeedka magaalada London. ururkan oo ah urur alaaba ka shaqeeya ama u taagan sidii wax uu qaban lahaa bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan dhiirigelinta da'yarta soo koraysa. waxaa ka soo qayb galay munaasabada qeybaha kala duwan ee bulshada oo isku jiray waalidiin, macallimiin, xildhibaano iyo waliba ardayda wax ka barata qaar ka tirsan iskuulada London. intii munaasabada ay socotay ayaa halkaasi waxaa lagu soo bandhigay majaajilo, gabayo iyo waliba documentary ka turjumayay sidii da'yarta looga dhiirigelin lahaa waxyaabaha aan wanaagsaneyn oo waxbarashadooda ka hor imaanaya. dadkii halkaasi ka hadlay hadaladoodii waxaa ka mid ahaa Welcome to House of Somali Community's first annual achievement award. xafladda dhalinyarada Hounslow Somali Community. ururkani waa kii ugu horeeyay golaha Hounslow noqon doonana kii ugu wanaagsanaa si uu dadka dhan jamac uga wada dhigo. baahidan aanu qabno inaanu iska abuurno, inaanu noqono dad isku duuban, aanu ka talina midnimo, qarannimo, qofkii khaladkiisa la tuso, qofkii saxsan la raaco, ra'yiga fiican la qaato, wixii dhibaato inoo keeni aanu iska ilaalino, qofkii liita la gacan qabto oo la garab siiyo. insha Allah taala annaga iyo dhalinyarada go'aankaas iyo horumarkaas ma gaari karayno, idinka ayay idinku xiranta inaad taageertiin. Your community proud, your parents proud today because you all got the prizes, or some of you have actually got excellent stuff, done excellent studies, and you're going to get loads of prizes today. But now, name one role model in your community you will go with. The biggest role model for your community. So what I want to say to you is, my beloved youngsters, please appreciate the chance you have. Work hard. Don't let this "I'm Somali, I'm black, I'm a Muslim" stop you. That's not an excuse. You are Somali for a reason. You are Muslim for a reason. That alone should make you succeed better than anybody. Aim higher. Don't aim for Brunel or for Westminster University. Aim for Oxford, Cambridge. Aim for Harvard. That's what I would like to see. That it doesn't matter what your background is. It doesn't matter where you come from. You all become part of this bigger family. What I wanted to say to our students: you are amazing, bright, shiny stars. xafladan ayaa ku soo gabagabooday jawi aad u wanaagsan, ayadoona ay tahay markii ugu horeysay oo xaflad noocan oo kale ay qabtaan ururka soo abaabulay ee Hounslow Somali Community oo xaruntooda ay tahay galbeedka magaalada London. Cabdirashiid Maxamed Nuur Cabdirashiid Rashka, Universal TV, London.